الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan ku soo jirnay ilaahay jalla wacalaa isagoo si faahfaahsan inoogu qaada dhigay qaswada ama duulaankaas suuradda loogu magac daray oo qaswatu laxzaab. qaswatu lkhandaqana waa la yidhaahdaa haddii laga fiiriyo dhinaca isbahaysigii iyo duulaankii iyo khatartana waa dhinaca axsaabka loogu magac daray. qaab difaaci magaalada uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama uu u sameeyey fikraddeeda uu iska lahaa saxaabigii jaliilka ahaa salmaanu lfarisi. dhinaca marka laga fiiriyo taagtiigii magaalada loo difaacayna qaswatu lkhandaq baa loogu magac daraa. waxaan ka soo sheekeynay qisadan ama arrintan markay dhacday waxyaabihii ka soo horreeyey ee ay daba socotay. waxaan ka soo hadalay oo inuu soo dulmarnay magaalada madiina deegaankii la deganaa iyo sidii la kala ahaa markuu rasuulku yimid sala allahu calayhi wasalam dadkii deganaa, kadibna qaabkay muslimiintu ugu noolaayeen, heshiiskii iyo nabadgelyadii la wada saxiixday dadkii meesha deganaa. kadib dadkii meesha deganaa koox ka mid ah 3 qolo oo meesha deganeed oo magac guud uu jamciyo inay iyagu nabadda iyo wanaagga in lagu wada noolaadaa inay u cuntami weyday oo iyagu ay ka dhex arkeen masaalixdooda iyo dantooda gaarka inaanay meesha ka muuqanin. kadibna ay bilaabeen shirqool iyo mardabo si isdaba joog ah oon haba yaraatee aan ka gaabin lahayn. 3dii qole ee meesha deganayd reer qaynuqaaca ugu horreeyey waynu ka soo sheekaynay sida ay khariirada madiina ay kaga tirtirmeen, xadgudub iyo dulmi ay la yimaadeen, in ilaahay jalla wacalaa shirqoolkii iyo makrigii ay wadeen in iyaga ilaahay ku rogay subxaanahu wa tacaala. walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ilaa biahlihi. qoladaasu waxay khariirada ay ka tirtirmeen intaan dagaalka uxud la soo gaadhin.
beder iyo uxud labada dagaal intii u dhaxaysay ayay meesha ka baxeen. banu nadiir iyo banu qurayda ku soo hadhay madiina. uxud markuu dhacayna banu nadiir baa sanka taagtay oo wanaaggii lagu wada noolaa garan weyday. shirqool iyo mu'aamaray abaabuleen in nabiga sala allahu calayhi wasalam ay dilaan, inay asasineyd gareeyaan oo ikhtiyaalaan rasuulka bay go-aansadeen calayhi salaatu wasalaam. iyagana dhagartii iyo shirqoolkii ay maleegeen ilaahay iyagu madaxa u saaray subxaanahu wa tacaala. mar labaad, walaa yaxiiqu lmakru sayi-u ilaa biahlihi. iyaguna muddada intaan axsaab la soo gaadhin ayaa iyaguna khariirada madiina ay ka tirtirmeen oo meeshii laga raray. labada qolee khariirada ka tirtirmay waxay ku kala duwanaayeen. qoladii hore banu qaynuqaaco oo nimankii dagaalyahaniinta ahaa ee hubka lahaa ee warshadii hubka samayn jirtay ahaa, noloshooduna waxay ku beys garaysnayd hubka ay samaynhayaan intay qabaa'ilka meelaha degan dhexdooda dab ka huriyaan oy ka shaqeeyaan colaad iyo isdagaal, inay labada qolaba intay hoos kala xidhiidhaan ay hubka ka iibiyaan oo warshadahoodu markaa ay noqdaan warshado suuq lah oo gadma. taariikhda haddaad dib u fiirisaay wixii horay usoo dhici jiray iyo waxa hadda jiray waa isku mid weeyaan, laakiin waxaa un kala duwan dadka filinka jilhayubaa kala duwan. laakiin fikradda iyo barnaamijka iyo waxa uu mowduucu ku saabsan yahay waa isla nafsa shay. atawaasaw bihi bal hum qowmun daaquun. waxay marka ka mushtari jireen dadka dhiigooda ayaa iyaga nolol maalmeedkooda iyo ganacsigooda uu ku salaysnaa. inay dadku baaba-aan iyagu ay soo hadhaan, in hubkooda uu gadmo oo mar walba loo baahdo. ileenay baahida haddaan la abuurin bani aadamku inay nabad ku wada noolaadaan asalahaan way jecel yihiin, laakiin waa inay jirto cid maxaanku idhaahdayy waxaan ka shaqayso oo iyadu noloshoodu ay ku salaysnaatay inaanay aadamuhu nabad ahaanin oo aynan heshiis ahaanin. saa darteed ayaa mar walba fidno iyo balaayo iyo abaabul laga shaqaynaya si iyaga ganacsigoodu uu usii jiro, warshadahoodu aanay u xidhmin, wax soo saarku usii jiro. qolada marka iyaga waxba kama hadhin, waa guureen xaggaa shaam bay u guureen. waxaa la tilmaamaa in ilaahay cudur iyo balaayo ku riday oo furuq iyo kudbaa ka dhex kacay, malaha waa baabeen. amaa qoladan reer banu nadiir way ka duwanaayeenoo odayaashoodii iyo raggii shirqoolka iyo inkaar qabanimada asaaska u ahaa, shaydaannimada rukumadeedii meel fog maanay aadina khaybar oon ka dheerayn halkaasay degeen, halkaasay magangelyo ayay ka doonteen oo ay tageen. meeshaa marka ay tageen waxaa u suurta gashay inay fursad u helaan inay is-urursadaan. iyaga iyo kuwo hore oo meeshaa sii deganaa 20 oday waa kay abaabuleen, waa ka yidhaahdeen innagu waynu is aragnaayo markaynu isku taagnay rasuulka sala allahu calayh wasalam waa inala go-day, shirqoolkii iyo mardabadii aan rabnayna waa inoo shaqayn weyd. asal ahaanbana iska horimaadka kuma fiicnine dad kale inay wakiil inaga noqdaan oo on behalf of us inay dagaalka ku galaan baynu ku fiicanay innagu. saa darteed bani aadam kale aynu abaabullo, aynu ujeeddadan leenahay aynu ku gaadho. awr iyo bridge aynu ku gudubno, aynu masaalixda iyo danta aan leenahay aynu ku gaadhnahay. dad kale aynu raadina calooshood u shaqaystayaal camal xisaabsan. waa wareegeen, waxay isku dayeen, yacni waxaa aad cajaa'ib u leh. waxay ahaayeen niman aada u aqrin yaqaana. fariinta ay rabaan inay gudbiyaan cidda u dhagan nuguley ka dhaadhicin karaan niman aada u yaqaanay ahay. mujtamacaadka iyay daraaseeyeen. waxay yidhaahdeen qolada ugu dhow aynu ka gadi karno fikradda in rasuulka lagu soo duulo sala allahu calayh wasalam ayay tahay. arrinkaa ayaa inala tacaatufaya o inala qaadanhaya oo inooga gadmaysaa fikradda iyada.
waxaa la yidhi qolada ugu horeysa ee hawshaas ay tahay inaynu ka dhaadhicinna waa reer maka. waayo reer maka loo doortay dhowr sababoodba. kow, waxay og yihiin dagaallo isdaba jooga oo lagu hoobtay in reer maka iyo rasuulka iyo saxaabadiisa sal alla alay wasalam inay hore inay usoo dhaceen. beder baan inaga fogeyno 140 toddobaatanna laga dilay, 70na gacanta lagaga dhigay. odayaashay ku tashan jireen oo dhanna afka dhulka loo geliyo god lagu koray. arrin waxay ahayd xanuunkeeda ay ka soo waaqsan waayeen nimankii Quraysheed. boogtaas waa looga faa'iidaysanayaa. kow, masalada labaad, xoogaa dagaalkii Uxud baa ruux iyo dadanimo kusoo yaro noqoto, burar u ruqruqeen oo ay waxyeello gaadhsiiyeen rasuulka sal alla alay slam iyo saxaabadiisa. laakiin waxaa ka dambeysay madal kale oo ahayd beder in mar labaad la isugu yimaado. tiina waa kii ay cabsadeen ee Abu Sufyaan ku dhici kari waayey oo ku marmarsooday sanadkan waa sanad abaaraho, abaar iyo dagaal la iskuma fiicinayeennaan bixin, iyadaysan abaar loo danaynaynin cabsi kale iyo wadnafu kale ay jirto. goolkaana waa ku maqnaa oo nimanka saa ugu wareegahayay oo madashii la ballamay Quraysh way tegi weydo way cabsatay, goolkaana waa ku maqnaa. waxaa intaa usii dheeraa meesha ay yacni Qurayshi ay degaan oo Maka ah waa umul qura waman xawlaha. waa meeshii hoggaankii diineed, astaantii maxaanku idhaha dadka oo dhan kusoo hiranayeen. marka kasbashada qolada la kasbado oo dagaalka in la geliyo lagu guulaystaay waxay ka dhigan tahay gool weyn oo siyaasi ah oo mujtamacaadka intooda kale lagu qancin karo. mujtamacaadka intooda kale iyo dowladahan yaryarka ahee iska masaakiinta abaadhuftida lagu qancin karo, lagu madaxweyneyn karo. dagaalkan Qoraysh baa hogaaminaysa. marka waxay ahaayeen niman si fiican u aqriyay oo si fiican u daraaseeyay oo ka baaraan degay fariintan cadowtinimo ee Madiine ku wajahan. cidda ugu horeysa ee ka gadmi karta iyo meesha laga bilaabi lahaa cid si fiican u daraasaysa u yaqaana ayay ahaayeen. reer Maka waa kay u tageen iyagoo 20 oday ah. waa kay ku qanciyeen. reer Maka wax awalba ka guuxaya bay nimankana ula yimaadeen. laakiin markan waxay ugu dareen keligiin ma noqon doontaan cidda bannaanka ka dagaalanta magaalada Madiina waan deganahay, 2 kooxoodba waa inoo diyaar. annaga oo reer Yahuudeed wixii meesha naga joogayay waa hoostan kala xidhiidhaynaayo way ishubaynayaana waa diyaar garoobayaan. waa kow. qolo kaloo muslim u ekaana waa jirtaayo hadhowteela aan rabna ciidanka inay hoolaasho oo ay jabiso oo ay ganta faruuraan ciidanka. raggaana waa lagu xisaabtamaya. sidaa darteed hawshan hadda yacni gudo iyo dibadba aynu barnaamij isku xidhno. ninkan annagana na rafaadiyey, idinkana idin rafaadiyey, qolo walbana afka dhulka u geliyey ee kadeedka inugu noqday. ninkan aan u heshiino meesha aynu ka saarno. waa rasuulka sala allahu calay wasalam. laakiin waxay ka warla-yihiin marka ay tashanayaan cid ay u tashanayaan inuu nebi maxamed yahay calayhi الsalaatu wasalaam. ilaahina jala wacalaaba oo la jiraayo waxaan ay ku sheekaysanayaan iyo qorshaha iyo kaartada ay degayaan ilaahay waa arkaa. wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin. arrintaa iyada ah oo bilaabatay oo ay ku guulaysteen waa kaynu ka soo warannay. ilaahay jala wacalaa isagoo arrintaa tilmaamahaya cadowga dibadda iyo kii daakhilka. waa kii aayadda qisada bilowgeeda اذkuruu nicmat اllahi calaykum id jaaءatkum junuud faarsalnaa calayhim riixا wajunuuda lam tarawha wakaana allah bima tacmaluuna basiira id jaa-uukum min fowqikum waa cadowgii dibadda wa min asfala minkum cadowgii gudahana waa kan. kadib baa ilaahay ka soo sheekeeyey subxaanaه wa tacaala culayska iyo xaaladdu say mu'miniinta ugu adkayd baa ilaahay subxaanaه wa tacaala ka soo warramay.
waxaa laga sheekeeyey munaafiqiinta iyo hadda sheekhoba koortiba cabaade laba qolo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka warramay qolo walbaba mawaaqifta ay qaadatay arrintanu markay dhacday baa si faahfaahsan looga soo sheekay munaafiqiinta ilaahay ka soo warramay subxaanahu wa tacaala waid yaquulu almunaafiquuna waaladiina fii quluubihim maradun maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura war meesha waa meel lugooye waa la isku baabi'in rabaa wax nasri iyo guul la yidhaahda ma jiraana meesha yaan laynagu hoolaalin bay yidhaahdeen kadib ilaahay waa kii falanqeeyay mowqif xumadooda iyo shaksiyad liidashadooda waa kii intii aayaadkii dambe lagaga warramay kadib haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkii mu'miniinta wanaagsanaa mowqifka ay qaateen iyo ilaahay jala wacalaa ballanqaadkiisa iyo nasrigiisa say ugu kalsoonaayeen baa ilaahay ka warramay walamaa ra'a almu'minuuna alaxzaaba qaaluu hada maa wacadana allahu warasuuluh wasadaqa allahu warasuuluhu wamaa zaadahum ilaa iimaana watasliima waa kii ilaahay ku faahfaahiyey jala wacalaa dagaalkii dabayshii ilaahay sheegay waa kii nimankii lagu sii daayay laba arrimood baa markaa ku dhacday furfur gudahooda la furfuro iyo dabayl iyo duufaan iyo qabow baa ilaahay kusii daayay subxaanahu wa tacaala furfurkii ku dhacay waa kii nucaym binu mascuud alashjaci waa kii ka shaqeeyey inuu iyaga iyo yuhuuddii iyo carabtii meesha timida gaalada ahayd inuu isku diro o iska hor keeno marka iyadoo duruuf adagi ay ku jiraan oo dabayshaasi iyo qabowgeeda lala joogi kari layahay kadibna waa kii waswaaska iyo shakigu soo kala dhexgalay qoloba qolada kale ka booday taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa ilaahay baa qalbigooda isku dhuftay subxaanahu wa tacaala waswaas iyo madmadow kale dhexgeliyay kadibna sabab u noqotay qoloba qolada kale inay ay ka istaagto o yidhahdeen wallaahi shirqool iyo dabin bay idiin maleegayeen maanta o dhan dabayshana waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaala kusii daayay marka dabayshu ay socotay shalay waxaan u malay waxaan ku ballansanayn in niman meeshoon inkaari ku dhacday loo soo afuro loo soo suxuurto casarkii la isugu soo noqdo marka qolada galabta waa la gebagabay insha afurka ka hor baa laga faraxalan ilahay idinki laakiin waxyaaba yani qisada intii ay socotay waxyaaba dhacahay laba arrimood oo yaryar baan jeclahay inaan tilmaamo rasuulka sala alla alay wasalam markay culayskani uu yimid wuxuu ku fikiray in isbahaysigan meesha yimid inuu kala furfuro wuxuu damcay inuu ku kala furfuro hanti iyo dhaqaale leanna hunguriga bani aadamku waa u daran yahay wixii hunguri la xidhiidhaay qofka waxyaaba cajaa'ib loo la yaab loo badan baa ka suura gala qoluu la hadlo wuxuu yidhi dhegaysta waan is ognahay oo dad aad waxu haysta ma tihiin oo duruufana waa idin haystaane hal ka warrama haddaad dagaalkan ka baxdaan raashinka madiine ka soo go-aya sanadkana aynu ku heshiino in haafka idinka la idin siiyo dagaalkana aada isaga baxdaan naftiinana aada badbaadsataan cuntada iyo raashinkaana aada heshaan oo dhaqaalaha halkaa idinka soo gala ka warrama diyaar baanuna aan ka wada hadalla hawshayada inaan ka wada hadalna waxba kama qaban rasuulka sal alla alay slam saxaabadii buu yihi gaar ahaan nimankii ansaareed ee magaalada lagu deganaa aws iyo khasraj labadoodii oday sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada ayuu u yeedhay rasuulku sal alla alay slam iyo rag kaloo la socdo wuxuu yidhi nimaya waad u jeedaan waa laisu keenbahaystay dhinac walbaa la inagaga yimid waxaanan jeclaystay in aan qaab siyaasadeed inaan isticmaalo oo cadowgan tirada badana ina wada dul fadhiya halka mar inugu soo leebka iyo rasaasta iyo madfaca inugu soo tuuraya inaan kala furfuraan dabca oo sidee bad rasuul allah ku kala furfuri waxaan damcay inaan ku kala furfuro qola wada hadal noo bilowday oo war iga sugahayo
waxaan ku idhi raashinka madiina kasoo go-ayaba qayb la idin siinaya idinkuna dagaalka iskaga baxa labadii saxaabi marka iyagoo edab aada u badan ay ka muuqato oo rasuulka sal alla alay slam qaabkay ula dhiil garaynayaan waxay rasuulka ilaahayow hadday arrintan ay tahay arrinaad adugu jeceshahay oo waxyi iyo aanu hadal badan annaga tala haddaanay nooga furnayn waan yeelaynaa waana qaadanaynaa haddii laakiin arrintanu ay tahay waxaad noogu yeedha inaad tala naga weydiiso marka haddaad noo fasaxdo fikrad baanu ka dhiibanaynaa waxaa kaloo weliba sii weydiiyeen waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow ma arrin lagu faray oo waxyi iyo diinoo inaan qaadana ay tahayba mase maadaama aad annaga noo yeedhay ansaar ahaan annagaad noogu danaynaysa aad nagu qalbi dhowraysaa maadaama magaaladii aan annagu joogno dadka martida loo yahayna aanu annaga ahayn ma annagaad noogu danaynaysaa ilaana qofka qaa'idka ee mas-uulkii wax badan inuu xeeriyo oo qiimeeyo waa lagama maarmaan keligay unbaa iska dhaqaaqaya waan iska soconayaa waxba kuma socdaan wax badan marka waa inaad qiimayso oo duruufaha kuugu xeeran iyo dadka aada horjoogaha u tahay wax badan inay kuu qiimaysan yihiin waa lagama maarmaan wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam xaqiiqadu waxay tahay idinkaan idinku danaynaya sababta waxaan arkaa carabtii kaleo dhan inay isu kiinbahaysatay cidda la raacdaysanaya la daba joogana waa aniga marka intii idinka ama gumaad ama dhibaato idin soo gaari lahayd inaynu barnaamijkan wax ku kala fududayno baan idinkaan idinku danaynaya waxay rasuulka ilaahay haddaad annaga noogu danaynaysaa ra'yi baan ka dhiibanaynaa waxay yidhaahdeen taariikhda haddaan dib kuugu yar xasuusino rasuulka u sheegayaan sal alla alay slam reer madiina markaanu ahayn nimankaasuna gaalada hadda yihiin bay gaalun bay ahaayeen annaguna gaalaan ahayn colaad iyo dagaalla waana dhex mari jiray weligoodna kuma aanay dhicin inay hunguriyeeyaan xoolaha madiina imaa inay lacag ku gataan mooyaan ama intay marti noqdaan wax laga siiya mooyaan inay baad iyo bilaash iyo maxaa istuxumburin inay ku qaataan taas weligeed ma dhicin markaanu gaalada ahayn hadday koob biyo ay gebgeb nagaga qaadi waayeen ma haddoonu muslimiin nahay bay isu kaayawaali karaan oonu bilaash iyo baad ay nagaga qaadayaan rasuulka ilaahay isu kaaya daabadha nimankan baad ha nagu bare way nagu halaaqayaan isu kaayada waan kala hadhaynaa gaalo markaan ahayn ba namayna hunguriyeyn jirno kumayna dhicine maantana ayaysan koob biyo ay bilaash aanay ku kabanin iyo baad wuxuu rasuulka ilahi sal ly slm saasaad garateen haa ilaahay ha idin barakeeyo yacni nimanka ansaareed waxyaabo tiro badan beder oo kale markii la gelayay hadallada ay ku hadlaayeen yacni dad ilaahay subxaanahu watacaala diintan ugu talagalay inuu ugu gargaaro oo maal iyo maskax iyo muruqba garab dhiga ay ahaayeen ilaahina jala wacala iyagu wuxuu ugu abaalguday inuu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam qofka mu'minka iyo calaamadda lagu gartaay waa inuu ansaar jeclaado munaafaqa waxaa lagu yaqaanaana waa inuu ansaar naco marka waa qeyb iimaanka ka mida jacaylkoodu qur-aankana ilaahay waa ku waariyey jala wacalaa meelo badan taasu markay dhacday oo rasuulka sala allahu calayh wasalam awshaas ay ku go-aan qaateen qoladiiba lagu warceliyay waxaa lay dhegaysta waa soo tashanay waxaa noo soo baxday barnaamijkan ka wada hadlaynay suuragal nagama aha marka wixii kale intaa dhaafsana idinka idinla quman oo idinku aadan sameeya marka uu dabayshu ay bilaabatay nucaym binu mascuudna uu si fiican u kala furfuray ayaa waxaa loo baahday iyadoo dabayshu ay dhacayso oo weliba qabow ay tahay dabayl xoog badan oo qabow iyo iyadoo ay cabsi tahay oo cadow ku kor fadhiyo rasuulka sala allahu alay wasalam intuu saxaabadii dhex istaagay wuxuu yidhi yaa nimanka warkooda inoo keena inay guureen oy tageen iyo inay weli joogaan waa la aamusay mar labaad buu ku celiyey waryaa nimanka inooga warkeena ilaana cadow baynu is hor fadhinaa dabayl iyo duufaanaa dhacahaya bannaanka uma adkaysan karaan inagu god iyo dhufays baynu ku jirnaa iyagu laakiin maxaanku idhahda sida waa xabo war oo bannaanka ay fafadhiyaan dabaysha halkaa qaadaysa
yaa nimanka warkooda inoo keeno mar labaad waa laamusay mar saddexaadku rasuulku sal lla alay slam wuxuu yihi xudayfat bnu lyamaan xudayfow istaag markaasaa wuxuu yidhi mar haddii la magacaabay xal kale ma jiraan waa inaan rasuulka sal amarkiisa qaato waan istaagay wuxuu yidhi dhaqaajiyo nimanka warkoodaas soo raaday laakiin hal baan kaaga digayaa mid iyaga ka mida waxa yeelin waxba ha gaadhsiinin haddaa hadalla xunxun haddaad maqasho laakiin waxa ay ku tashanhayaan iyo waxa uu qorsho ah nimankaa soo ogow waan dhaqaaqay buu yidhi markaan saa u dhaqaaqay ayaa dhaxantii iyo qabowgii wixii dhacayaba ilaahay baa iga dulqaadayba subxaana wa tacaala waxaa way moodaa u yihi meel uumi ah inaan dhex socdo saan usii socday abu sufyaan oo ciidanka ninkii hogaaminaya qoraysh weeye moogta abu sufyaano intuu waxaan ku idhaahdaa busto ku dadan yahay saa u boodboodaya dhaxanta intay dhinac walba ka gashay dabkiina ka damay buulcawskii xumaaya meesha la qootamiyeyna madaxiisa minjo laga rogay ayaa nugu tegay waa la is ag fadhiyaa waa habeennimo la isma arko markaasaa hadalkuna si fiican laysoo maqlay waa in kor loo dhawaaqo qaybtii marka madaxtooyadii baan dhex fadhiistay markaasuu yidhi abu sufyaan waryaada war sidan kuma jiri karnee bal aynu tashanee horta in laynagu dhex jirana waa suuragale nin geed geli jira baa l geed looma galo in laynagu dhex jirana waa suuragale nin walbow bal ninka kugu xiga bal weydii kumaa tahay intii la weydiin lahaa baan go-aan qaatay inaan ka hor dhaco kii igu xigaba intaan dhabsiyan waryaa kumaa tahay ilaa aniga haddii la weydiiye moogta isagii aan ku bilaabay waryaa kumaa tahay issheeg kaasi hebel baa lahay si miskiinnimo ku jirto bes waan ku gartay baan ku yihi marka wuxuu yihi abu sufyaan waryaada war dhaxan iyo dabayn iyo bebed aynan u joogi karin baa meesha inagu helay magaaladiina waa kan difaacan inkaarta qaba ay nimanka u sameeyeen oo u geli kari la-na nimanka yuhuudda inkaarta qaba een moo ku tashanayna intaas ina soo dhalan dhooliyeyna waa kuwan hadda warkoodii la fahmi layahay ragna siiya aanu meesha cudhaar usii haysanaba waxaa daldalay sidaa darteed meeshan awrtiiyo gaadiidka intaan inagaga dhammaanin sahayda inta inoo soo hadhayna aynan inaga waxaysmin anigu haddaba waan tegahayaay ina dhaqaajiya yaa i raaci buu ka bilaabay bu qole awalba ilaahay yaa mar meesha idinka dhaqaajiya lahay dhurwaa dhinacuu raba usha loogu dhuftay dhekolka didma dhar jeclisi waa la dhaqaajiy xudayfa radi allahu canhu isagoo war farxad la wado ayuu soo noqday rasuulka aanu imid waxaan ku yihi rasuulka ilaahi kuwaas waa dabayshaday waa ku daayeen warkoodi waa sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan wa kaasa rasuulku waa ii duceey u yihi sal alla alay slam kadibna maradiisa ayuu igu daday maadaama caawo dhan aan guuraynhay oo dhaxan aan dhex meeraysanhayay gigtaan habeenkaa idhi subaxii baa iigu horreysay yihi kicitaan qoladii waa dhaqaajiyeen marka arrintaasu muddo dhowr iyo 10 beri ama bil ku dhowaada ayay socotay go-doominta madiine lagu hayay waad garan kartaa marka dad duruuftaa ku noolaa oo xaaladda ay ku jiraan daalka iyo baahida iyo dhibaatada wax la soo koobi kara ma ah waa maalinta rasuulka sala allahu alay wasalam la arkay isagoo 2 dhagax caloosha ugu xidhan tahay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu aada u gaajoodo gudahaaga iyo calooshaadoo dhan baa isku dhexdhacaya marka in aad ama wax ku xidha mara ku xidha ama saas oo kale marar bay duruufta kugu kalifaysaa si sbaceka badan ee waasice afka kalaya wax lagu ridana aan loo haynin si isugu soo dhawaada callaqa rasuulka 2 dhagax ayaa maalinta caloosha ugu xidhnaa yani baahida iyo heerka ay gaadhay intuu dagaalku socday ama go-doomintu ay socotay dagaal weyn ma dhicin wax yaroo isku tuurtuura mooyaan iyo dhaawacyo iyo dhimasho yaroo kooban mooyaan waa kii rasuulku sala allahu alay wasalam qoladii yuhuudda markay ballanka baxa sameeyeen waa kii
warka ugu horeeyay waxa uu keenay baa la yidhaha markuu diray الزبير بن العوام رضي الله عنه ayaa u keenay rasuulka ilaahayow sahankii iyo ilaaladii aad ii dirtay warka aan hayaay nimankii yahuudeed aynu heshiiska lahayn ballantay waa ka baxeen cadowga duulaanka ayna daraf iyo qeyb ka yihiin gudahuna qorshuhuya inay ka soo weerartamaan rasuulka sala allahu alay slm arrintaas aad bay culays u saartay kadib wuxuu diray 4 nin buu diray oo odayaashii ansaari ay ku jiraan yani xikmadda rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu diray sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cubaada cabdullaahi ibnu rawaaxa iyo saxaabi kaleo khawaat la yidhahdo khawaat ibnu jubayr ujeeddada rasuulka sal ly slm oo labadan saxaabi u diraya waa labadii jilib ee ansaareed aws iyo khasraj labadoodii sayid labadoodii oday labadoodii horjoogo weya labadan saxaabi warkan uu zubayr ibnu cawaam uu keenay rasuulku waa ku kalsoon yahay sal alla alay slam laakiin wuxuu rabaa odayaasha reer madiine oo aws iyo khasraj inay iyagu indhahooda kusoo arkaan oo warka hadhow toolama la hubiyey iyo kutirikuteen amuu yahay iyo yaa soo xaqiijiyey aanu hadal boos aanu ka furnaan waa kii la dardaarmo o yidhi haddii ay ballantii ka baxeen markaad soo noqotaan ii baaqa laakiin dadka ha u sheegina sababta way niyo jebinaysa haddiise ay ballantii sidii tahay oo warkanu uu yahay waraan sugnayna oo nimankanu ballantii ay sidii u ilaaliyeen oyba diyaar u yihiin dhankooda inay difaacaanna dadka u sheega oo kaga farxiya way tageen nimankii waxay u tageen banu qurayda waxay yidha warbal warrama see wuxuu jiraa dee maxaa jiri lahaa ba yidha ballantii annagu waan ka baxnay wax ballan oo inoo xidhan ma jirtaa yaraata warqaddii heshiiska ku qornaa intay soo saareen ayay hortooda ku kidfeen oo ku jeexjeexeen seef iyo qori afkii unbaa wax inoo kala qaadi mooyaane wax ballan oo aanu aaminsannaho anu rumaysannahay ma jiraan war dad odayaal oo akhyaaraho wax ka xidhma miyeedan ahayn ka yaabina inta annaga danta iyada aan ka dhex arkayno unba annaguna xidhaa bahalkanu sidiisu maalintaan u aragna maslaxada iyadu inaan jabin inay ku jirto idinkala tashamayno xataa idin wargelin mayno raxamka allah masaas ahaa bas way soo noqdeen rasuulka u yimaadeen sal alla alay slam oo u baaqeen waa shirqool bay yidhaahdeen weliba waxay ugu halqabsadeen laba qolo oo dad saxaabo ah horay u shirqooleen labadii qolo magacooday sheegeen oo ay ka dhigan tahay baaqaas waa shirqoolkii qoladii kale oo wax ballanihi oo lagaga xisaabtamay dagaal mooyaan ma jiraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinta hala qariyo laakiin wax ku siiyaad weydaaye wax kuu sheega ma weydid warkuu tartiib tartiib hebelow waan kuu sheegayaa lagaa maqlin in badan buu warku ku baxaa hadda adugun baan kuu sheegahaya aanu ku dhaafin ninba ninka kale adaan kuu sheegayo anu ku dhaafin si uu leeyahay warku waa soo wareegan warkiisu waa galay magaalada ciidankii waa ku dhex faafay culays kale oo soo kordhay buu noqday ilaahay jala wacalaa wuxuu qadaray markii iyaga dhexdooda uu isku diray nucaym binu mascuud oo iyagoo qoladii soo duushay ay kala baxeen oo uu dagaalkii dhammaado nimankii gaaladii soo duushay oo 10,000 ahayd saxaabaduna markaa waa 3,000 wey taqriiban waa 3 jibaar bay ka badan yihiin waa sidii beder oo kale rasuulka sala allahu alay wasalam qoladii marka ay guureen oo ay taageen oo la hubiyey inay dhaqaajiyeen oonu qofna ka soo hadhin qoladii dusha bannaanka ka soo duushay oo tuu ilaahay tilmaamhaya ah warad allahu aladiina kafaruu bigaydihim lam yanaaluu khayra wakafa allahu almu'miniina alqitaala wakana allahu qawiyan casiiza ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam yani gurigii lmuminiin umi salama radi allahu canha ayuu tegey oo markaa uu qabaysanaya waa intii dagaalku uu soo socday oo godka la qodahayay
oo gaajada iyo dhibka la maray. rasuulka sala allahu alay wasalam marka uu qabaystay ayaa waxaa u yimid jibriil, wuxuu yihi maxamedow, waxaad ku moodaa inaad hubkaaga inaad dhigtayba oo dagaalka inuu dhammaaday sidiisii oo kalea kaa muuqato, laakiin malaa'igtii ka qayb qaadanaysay dagaalkeedii maanu dhammaanin ee fadhiga ka kac. oo nimankii reer Banu Qurayda ee wixii la ogaa sameeyey barnaamijkooda waa in lasoo afjaro. wax badan bay makri iyo shirqool iyo dibindaabo ay sameeyeen. marka qoladaasuna waxaa la gaadhay waqtigii ay khariirada Madiina ay ka tirtirmi lahaayeen. sidaa darteed ciidanka amar sii hal qof oo ka mid yaanu meesha hadhin. xaafadda ay nimanku magaalada ka deganaayeen waa in la dul dego. rasuulka sala allahu calayh wasalam markaa amar deg deg u bixiya, laa yusalliyanna axadun ilcasra ilaa fii bani qurayda. saacaddaa qofkii imaqalhaya oo amarkayga qaadanhayow meesha aad joogtaan ka dhaqaaqa. qof kasta waxaa lagaa rabaa inaad iska xaadiriso casarkii reer Bani Qurayda inu ku tukanayna. reer Bani Quraydana way ku talagaleen mar hadday ballantii say is-ogyihiin ay uga baxeen. ciidankii ay meesha kusoo daabuleenna ilaahay jebiyey oo meesha banneeyeen. cidda xigtaay inay iyaga yihiin nin weyn wadkii waa yaqaana. meeshii baa la tegey. ciidanka marka rasuulka sala allahu alay wasalam ghaswat alaxzaab waxay dhacaysaa waa bishan shawaal ee inagu soo socoto oo kale. qoladaa waqtiga loo tegayana waa dilqacda bisha ku xigta weeyaan. sababtoo ah 12 ilaa muddo dheer baa go-doominta Madiina la go-doomiyey, mudday socotay. qoladaasaa marka rasuulka sal ll slam ku dhaqaajiyey. waa loo tegay. calanka ciidankana waxaa loo dhiibay halyeygii la yaqaanay ahaa caliy bn abi aalib radia allahu canhu, oo goobaha dagaalka markay noqotaay xagga kale uga dhex bixi jiray. meeshii baa la tegey. nimanka waxay go-aansadeen inay isdifaacaan. dee option kale iyo xal kale waxay sameeyeen bay is ogyihiin. waa la go-doomiyey iyagana. bal u fiirso, maalmo ka hor madiina waxaa saaraa go-doomina iyagu soo abaabuleen. maantana iyagii baa go-doonsan. wayamkuruuna wayamkuru allahu wallahu khayru lmaakiriin. waa la go-doomiyey. go-doonkaasu ilaa 12 beri 15 beri baa la tilmaamaa inuu jiray. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray maalin maalmaha ka mida markii muddo la iska hor fadhiyey ayaa cali bn abi aalib iyo azubayr ibn alcawaam ayaa difaacoodii iyo dhufayskoodii soo ag istaagayo cali baa wuxuu yidhi, war mu'miniinay ma i maqashaan? haa. soo ani calanka la iima dhiibin? haa. ilaah baan ku dhaarane inaan sidan la isu sii korfa fadhiyeynin, ama waan dhiman ama dhufaysyada waan jiidhi, ama sidii xamse wuxuu dhadhamiye oo shahaadadii iyo aakhare aadama igu dhacaya, ama difaacyadan la xidhay iyo dhufaysyada waan ka dhexbixi. labadaa waxu dhex intaa ka badan la isma sii agfar fadhinaya, la ismana dhowranay. nimanku intaa markay maqleen dabageliskaa u baxay. ilaahay baa inkaar ku riday subxaana wa tacaala. cabsi iyo argagax waxay bilaabeen inay hashkadeeyaan. cidhbahooda ilaahay dhulka ka qaaday subxaana wa tacaala. malaa'ig baa ilaahay ku diray. kadib baa waxay yidhaahdeen, waxaanu doonaynaa in bal qofna loo soo diro oo markaas si wada hadal oo kale waxuun u bilowdo. waxaanu diyaar nahay inaan isdhiibnaanu diyaar u nahay, laakiin intaanan isdhiibin ka hor waxaan rabnaa in qof naloo soo diro. weliba nin bay cayinteen oy magacowdeen oo yidhaahdeen nin hebel saxaabiga aha naloo soo diro. waxaa jiri jirtay nimankan Banu Qurayda
waxay si gooni ah isu gaashaan buursan jireen reer aws oo ansaarta ka mid a meesha ay qoladii hore qaynuqaaca ay xulafo ay ahaayeen reer khasraj waana horey usoo marnay qaynuqaaca markii la qixinayee meesha la damcay in la gumaado munaafiqii cabdullaahi bin ubay ibnu salool inuu ku hagoogtay oo reer aws ahaa waxaan u jeedaa reer khasraj ahaa oo yidhi dadkanu waa dadkii aanu heshiiskii iyo xulafada aanu ahayn hala ii daayo rasuulku sal lla ly sl isagoo wax badan xeerinhaya waa kii u daayay calayhi salaatu wassalaam haddaba ninkaasay yidhaahdeen hana loo soo diro abu lubaaba cabdilmundir isagii baa loo soo diray marka uu u yimid ayay raggii oo dhan isa soo taageen islaamihiina baroor isla rogeen de maxaad barooranay shalay waa adiga alalaasahay ee ballanka bex waa adigu alalaasahay oo dadka hallagumaa durbaanka u garaacahay ama afeef hore yeelo ama adkaysi dambe yeelo meeshan oo kale calaacal iyo farataagtaag iyo dhafarxo xoqashaxba kama tarto oo himdaa la isku darayo meesha la baroortay oo duufki iyo celida la isku qasay wuu u yimid oo xoogaa xaaladda jirta markuu arkay sibuu u yar damqaday odayaashii baa gooni ula baxay marka waxay yidhaha waxaan rabnaa inaan isdhiibnee maxay kula tahay inaan rasuulka isu dhiibnaan rabnaa wuxuu yidhi waa ila wanaagsan tahay hawshaa sameeya waa idinkula talin haye maxaa ka dambeeya haddaan isdhiibno wey de maxaad iga warsanaysaan buu yidhi gacantu marka saa ku yidhi waa su-aasha ma su-aal la isweydiiya isla marka uu sidaa yidhi wuxuu u tilmaamayaa in gamta loo taagi doono nimankanu faldembiyeedka ay galeen wax la qiyaasi kara ma ah intaa markuu yidhi buu wuxuu fahmay oo uu isgartayoo inuu sir bixiyey inuu sir rasuulka sala alla alay wasalam go-aankii u yaalay inuu faafiyey marka uu ka soo noqday iyaga rasuulkuba kumaanu soo leexanay sal alla alay wasalam masaajidkuu tegay madiina xadhig buu isku xidhay geed buu iska soo laadlaaday wuxuu yidhi khiyaamo weyn baan gala khiyaano qaran baan galo sirtii rasuulka sala allahu alay wasalam aan cadowgii yaan u geeyey sidaa darteed geedkaa iska furi maayo in ilaahay in iga furo iga toobad aqbala mooyaan halkaasaan ka laadlaaday war ninkii maxaa ku dhacay oo markaasaa loo sheegay rasuulka sala alla alay slam sidaasaa dhacday oo saasuu sameeyey markaasu hadduu ii iman lahaa ilaahay baanu dembi dhaaf u weydiin lahnaa khaladku waa dhacaa kadib ay isa ninkii odayga u ahaa oo kacb bni asad la odhan jiray nimanka reer banu qoraydo odaygoodii ayaa wuxuu yidhi niman yahow waxaan u malaynayaa in arrintu waa meel adag bay maraysaa saddex kala doorta buu yidhi nimanka reer banu qoraydo saddex arrimood mid ka doorto war niman yahow inaan isdhiibno oo weliba aan islaamno oo diinta nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam aynu qaadano aynu gallo si aynu nafteenna iyo maalkeenna iyo waxeenna u badbaadsanno waxaana intaa idinku darayaa buu yidhi waad ogtihiin inuu nebi moxamed yahay sal ly slam nabigii xaqa ahaa ee diinteenna lagu sheegay inuu yahay waad garanaysaa khayr darri iyo inkaar qabanimo iyo aafa qabanimo unbaad u diidantay waan is ognahay innagu dadka kaleyna u been sheegi karaa inagu bahashis kama gadi kara waan is ognahay xasadnimo umaan la diidannahay waan ognahay inuu rasuulkii dhabtahay xaqa inuu aan rumayno adduunkeena iyo aakharadeenaba saasay ku badbaadi cidina wax idin yeeli mayso may baa la yidhi arrintaasoo namayn gelin okay waaya tu labaad haddaad taa diideen wixii soo hadhay waa dagaal iyo dhimasho si sharafla u dhinto oo weliba waxaa ila wanaagsan buy islaamaha iyo caruurta
aynu horta gam ka dhigno kuwaan aan layno aan xaaqno marka oo nin walba islaantiisii ilmihiisa marka uu diloona waxba u soo hadhin oo dhimasho mooyaane aan dagaala nafar yaan inaga hadhin taana caqli ma ahalin taa ayaa ku dhiiran kara islaami cardu ta saddexaad maalinta sabtida ah oo ay moodayaan inay feestadeeni tahay aynan dagaali jirin aynu dagaal iyo weerar gaadma aan qaadno wixii ilaahay naga siiya baan aragna waxaa lii taana ku tashan mayno kaasuu yidhi markaasuu xanaaqada odaygu bakti wategi weligiin saad u dhala hooyadiin saa idiin dhashay weligiin hal go-aanoo raganima maydan qaadanin labac niic maanta dhan ku meeraysta war rag baa ilaah idinka dhiga go-aan ma gaari kartaan miya baktigu wate u iskaga tegay marka odaygu de wuxuu sameeya male waa la isdhiibay markii la isdhiibay rasuulka sal alla alay slam wuxuu yidhi wax allaale wixii nin wixii gaashaanqaad wixii gaadhay wixii dagaalgal gaadhay oo dhan gooniha loo maro maxasta iyo carruurta waxba yaan la yeelin dumarka iyo carruurta iyo dadka noocaas oo kale waa yeelka gaboobay ee dhacay iyo waxba la yeelin laakiin ragga gaashaanqaadka oo dhan gooniha loo maro gooni baa loo maray oo hal fig dhabar ah loo taagaa layidhi waa la figayey nimankii saxaabadii ansaar jilibkii aws la odhan jiray oo nimankanu xulafo ahaayeen ayaa rasuulka u yimid sala allahu alay wasalam waxay rasuulka ilaahayow nimankan reer banu qurayda waa nimanka aanu xulafada ahaan jirnay sax xadgudub bay sameeyeen shirqool iyo makri bay sameeyeen waxaanse jeclaan lahayn sidii reer banu qaynuqaacba walaalaha iyo khasraj sidii loogu ixtiraamay oo loogu ilaaliyey in annagana na loogu ixtiraamo oo aan nimankan la laynin wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam sidaas ahaa ka warrama nin idinka mida reer aws haddaan intaan arrinta ku wareejiyo xukunka uu ka soo saara ma ku raali noqonaysaan haaba yidhaha rasuulka ilaah mar hadda annaga qof naga mida na lagu wareejiyo go-aan allaale go-aanku ka soo saaro diyaar baan u nahay wuxuu yidhi haddaba odaygiinu soo ma ahayn sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaad ha la doono su-aal baa isweydiin yeelan karta sacd ibnu mucaad muxuu goobta uga maqan yahay xaggee laga doonaya sacd ibnu mucaad dagaalkii meesha lagu soo qaaday fallaadhihii iyo leebabkii la isdhaafdhaafsanhayay mid ka mida ayaa halkaa lowga ishiisa ah ka haleelay marka waa dhaawaco waa la dhaawicinhayaa oo meeshaasaa kolba dhiig fakato uu dhiig baxaa sacd ibnu mucaad marka waa nin 30 jira weeyaan marka uu dhaawacmay ayuu ilaahay baryay subxaanahu wa tacaala oo arkay dhaawac inuu dhaawac halis ah u yahay wuxuu yidhi ilaahayow naftaha iga qaadin anigoon arag reer banu quraydo ay balaayo ku habsatay reer banu quraydo ay balaayo ku habsatay anigoon arag ilaahayow naftaha iga qaadin ducadiisii baa ilaahay u aqbalay waxaa laga doonay marka meeshii lagu dhaawicinhay ayaa laga doonay waa la keenay isagoo dameer lagu sido oo lagu wado ayaa la keenay rasuulka sal alla alay wasalam ree aws wuxuu ku yidhi qumuu ilaa sayidikum odaygiina istaaga oo yani gaadiidka ka soo dejiya ila waa nin dhaawacoo kaba degi karin intii marka dhexda la soo waday ilana iyagaa loo diro la yidhi kacaya doona odaygiini intay dhexda soo wadeen marka intaas waa lagu dhaga hadlayay sacadow hade waad garanaysaa nimankan sidaynu isku ahaan jirnay
maxaan ku idhaahdaa maanta adaa lagu dhiibay arrintooda oo rasuulku kuu dhiibay haddee wax wanaagsan oo taariikhda galaa lagaa filayaa waad garanaysaa qoladan walaalaheena ree khasraj nimankii maxaanku idhaahdaa ay ku hagoogteen iyo sidii loogu daayey rasuulku waa naxariis badan yahay sal alla alay wasalam waa ina ixtiraamahayaa arrintii inagu inagu soo wareejiyey haddee maanta ada odaygii ahee bal hawshaa ka odaya oo si fiican ka yeel juu ma yidhaahda sacd ibnu mucaad waa dhegaystaa bes shib ku kalaa haddana bilaaba wuu wadaa meeshii markuu kusoo hooriya waa iska aamusan markuu goobtii ku soo baxay ayuu hadal adag buu ku yidhi marka wuxuu yihi amaa aana lisacdin anlaa ta'khudahu fi llaahi lowmata laa'im miyaan la gaadhin hadda waqtigii sacd ibnu mucaad uusan qof eedayntii iyo dhaleecayntii uusan wixii ilaahay raalli gelinaya uga hakadan miyaan la gaadhin miyaanay tajrubo iigu filan inta aan soo noolaa wixii dhacay miyaanan mowqif ka qaadan karin markaasaa waxaa la dareemay inay meel ugusha uga go-an tahay rasuulku u yimid sala allahu calay wasalam wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi sal alla alay wasalam nimankii walaalaha ansaar aws fikirkan ay soo jeediyeen aniguna waxaan ku idhi qof idinka idinka mida hawshaa gacanta aan ku wareejiyey wuxuu ku xukumo adaa lagugu wareejiyey sacadow wax allaale waxaad ku xukuntaa xukunno ah wuxuu rasuulka ilaahayo waxaan anigu ku xukumo ma lagu fulin mase far baa ka taagan waa lagu fulinhayaa si allaale sa adu xukunka arrinkayga ma la fulinaya haa go-aankaygu ma soconaya haa arrintaa ma iska huba haa go-aankaygu waa sidii anigu marka nin allaale ninkii gaashaan qaada kurkaa laga goyo marnaba yaan loo nexin rasuulka sala allahu calayh wasalam bes go-aankaasaan gooyey warkuna waa dhan yahay xoolahoodii iyo wixii kalena hala qaybsado nin allaale ninkii gaashaan qaadana kurkaa laga jaro rasuulka sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi waxaad xukuntay ilaahay xukumkiisa oo ka soo xukumay min fowqi 7 samaawaat ayaad waafaqday sacadow xukunka ilaahay uu kuwan ugu talagalay in lagu fuliyo oo min fowqi 7 samaawaat oo ka soo xukumay ayaad waafaqday bes waxaa la gaadhay waqtigii marka shaqadii xukunkii ilaan maxkamaddu way xukunteen waqtigii lagu fulin lahaa baa la gaadhay meel bay ku xaraysnaayeen kolba koox baa loo yeedhaa marka odaygoodii kacab binu asadna meesha waa dhex fadhiyaa kuwaa marka waxay isweydiiyeen war kolba kooxun baa sii socota oo wax inagu soo noqonayana ma jire ee talow dadka miyaa la laynayaa markaasaa wuxuu yidhideen afii kulli mawطinin laa tacqiluun war waxaan idin weydiiyey wax fahmaya ma tihiin miya doqonnimo iyo ahbalnimo iyo dhaandhaannimo iyo caranimaad meel walba la soo taagantihin war miyaydan arag rag wixii baxana inaanu soo noqonayn kolba koox in loo yeedhayo wallaahi baan ku dhaartay waa dil ku talagalab go-aan qaataso idinkamaan weyn haa neecneecda iyo meermeeraysiga iska dhaafa waa seef qoladaasuna ilaahay jala wacalaa halkaas ayuu ku baabi'iyey nin baa jiray marka xuyay ibnu akhdab ninkii 20kii oday ee abaabulka samaynayay markii ay ciidamadii soo dhowaadeen oo magaaladii soo hareereeyeen wakaynu soo sheegnay in xuyay ibnu akhdab uu albaabka ku soo garaacay kacab binu asad isagoo doonaya inuu kacab binu asad inuu ballankii iyo heshiisku rasuulka la galay sala allahu alay wasalam inuu ka baxo waa kii marka hore ka diiday muddo markay adugu ay sheekaysteen arrintii ay gorfeeyeen oo qaadaa dhigeen waa kay isla qaateen in ballanta laga baxo
hal shardi laakiin waa kii ku xidhay soo ma xasuutaan muxuu ahaa shardigaasu haddaad ila dhimanayso oodan hadhowtoola iiga bixi doonin diyaar baan u ahay inaan hawshaa galo oon ballanta ka baxo haddaad ila dhimaynayni laakiin adeer ha iligoyni waa ballan buu inaan kula dhinto oonan kaaga bixin oon kula joogo xuyay marka waa fadhiya meesha xuyay ibn akhtab ayaa la keenay marka marada uu qabay soo intuu tiyoori qaatay iyo mindi ayuu meel walba ka duleeyay si aan loogu nacfisanin gadaashii si aan gadaashii loo nacfisanin meel walbuu ka duleeliyay markaasaa loo yeedhay isagoo xidhan baa meesha la keenay waala la iskaranaya de rag waa is yaqaanaan haye warran baa layidhi maxaan warramaa buu de waa dil ilaahay noo qoray inaba kama shallaytaysni buu yidhi wixii aan cadaawad iyo aan maleegahayay horta inaba kama shallaytaysni laakiin qofkii ilaahay jala wacalaa qalabada iyo raynta uu siiyo ayaa laga rayn karin wax walba waanu isku daynay geed dheer iyo mid gaabanba waanu u fuulay laakiin dee ciddii ilaahay ugu talagalay inay haalib noqoto oo raysaay ayaan cid loodin karta ama leexin karta ama jabin karta aanay jirin marka wixii idinla quman sameeya buui marada maxaasaan ugu gashay baa le inaydan iga furanin baan ugu talagalay buui inaydan iga furanin baan ugu talagalay buui waa wax kay ah inaan la nacfisanin ilaahay subxaana wa tacaala arrintiiba marka uu tilmaamayo oo ay suuraddu soo gebagabaysay wuxuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waأnzla aladiina ظaaharuuhm min ahli اlkitaabi min sayaasiihim waqadafa fii quluubihim الrucba fariiqa taqatuluuna wata'siruuna fariiqa waأnzla aladiina ilaahay kuwii waa soo dejiyey ظaaharuuhum gaalada maka u kaalmeeyey oo min ahlilkitaabi ahaa nimankii ahlulkitaab ee reer banu qurayda ee kufaaru maka u kaalmeeyey oo garabkiiya gacanta siiyey ilaahay waa uu soo dejiyey min sayaasiihim dhufaysyadoodii iyo goobahoodii difaaca ayaa laga soo dejiyey oo waa isa soo dhiibeen waa laga soo dejiyey ilaahay baa ka soo saaray godadka ay ku jireenoo waa isa soo dhiibeen waqadafa fii quluubihim inay isa soo dhiibaan oy difaacoodii iyo dhufayskoodii ka soo baxaanna maxaa qayb ka qaatay waqadafa ilaahay waa ku tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax iyo cabsi baa lagu tuuray oo inaanay isdifaaci karin oo la jabsan doono oo loogu soo geli doono taasaa ilaahay qalbigooda ku tuuray iyo fulaynimo cirbaha dhulka looga qaaday hadday isa soo dhiibeen oo ilaahay cabsidaa qalbigooda uu geliyey cirbaha dhulka looga qaaday oo godadkoodii ka soo baxeenna fariiqan koox oo intii gaashaanqaadka ahayde taqtuluuna gamtaad u taagayseen oo waad leynayseen wata'siruuna fariiqa intii kalena waad qafaalanayseenoo hantidoodii iyo xoolahoodii iyo wixiina waad la wareegteen waxaa intaasii dheer weliba maxaabiis bay idiin noqdeen oo wixii oo dhan baa lagala wareegay wa awrathakum ardahum wuxuu ilaahay idin dhexal siiyey oo gacantiina la soo geliya dhulkoodii dhul beeroodkoodii ay beeranhayeen ay deganaayeen ilaahay gacantiinuu soo geliy wa diyaarahum guryahay deganaayeenna gacantiina ilaahay soo geliyay وأورثكم أرضهم بإله إذن أحل سيئي iyo wa diyaarahum iyo wa amwaalahum xoolahoodii wixii maal ay lahaayeen guurto iyo ma guurto wixii guryo lahaayeenba ilaahay gacantiinuu soo geliyay iyagii waa la gumaaday hantidoodina gacanta ilaahay idiin soo geliyay iyo wa ardan lam tata'uuha tan keli aba ma ahee tu aan tan ahayn oo idan weli tegin oo idan gaadhinna ilaahay gacantiinuu gelin doonaayo guulo kale ayaa idiin soo socda tan keli aba ma aha
waxaa la tilmaamayaana waa khaybar iyo wixii ka dambeeyey. khaybarna waxaa isku urursaday kooxo kale oo isla iyaga ah, marka iyagana ghaswo kale oo ghaswatu khaybar la yidhaahdo ayay ahayd tii iyagana barnaamijkooda lagu soo gabagabay. wa kaana allahu ilaahay waxa uu yahay mar walba calaa kulli shayin wax kasta qadiiran mid ka awooda. wax walba ilaahay waa awoodaa, wax cajis geliya oo ku culusna ma jiraan. wuxuu isagu doono unbaana meel mara, wuxuu ilaahay doonayna waxaa ka mida in nimankaasoo khariiradda madiine ay ka tirtirmaan, shirqoolkoodii iyo dhagartoodiina uu soo gebagabowdo, ilaahina jala wacalaa muslimiinta uu nasri iyo guul uu ka siiyey, cadowgii gudaha ahaa iyo kii bannaanka ee soo duulay, ciidamo uu ilaahay isagu og yahaano bini aadamku garanayninna oo ilaahay uu ku diray subxaana wa tacaala. halkaas ayaa waxaa kusoo gebagabowday qisadii suuradda loogu magac daray oo ghaswatu laxsaab ahayd, muuqaaladeedii kala duwanaa, qaybihii kala duwanaa ee ka qayb qaadanhayay, si ay ku bilaabatay iyo gebagabadii meesha ay kusoo dhammaatay ay kusoo ururtay ayaynu halkaa kusoo gebagabaynay. insha allahu tacaala cashirka xiga berri buu inoo noqon doonaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala. wallahu subxaanaه wa tacaala aclam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.